كاسولا شوغان مرينا كده كتشو كده هلكا كتشو كده اور كتشو خلي بالك عمسكو والله يا بنت لا شروطك لغات عبد الرحمن تراي بوركو ديبو كتاب عندنا واحد راسك حاجه لسه دو يا ربح دي كده يقولنا waxa salaanta u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow Diğer mi çiğ?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير مدحوينه جمهورية الصومال لأن يوفتي إلى السعودية وعلى لنا يسود هذا مدحوينه جمهورية الصومال لأن والسعودال كان كغسو نقضي دلك تركيا وكمل السعودال لدى وشو هي جمهورية الصومال لأن وعن جعله مدحوينه جمهورية الصومال لأن سقيمه إيا شرف لين الوسو دولي هالكن سو صحافة وربحين كوبا نقصيه السعودال كي تركيا يكون مقنعين ومرفع عن وقرن كوحتة يا كسو ويدين وذنا مدحوينه وعن كوسو دوينه يا هالكن سياد صحافة وبريفكايس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجع وقت جلس على فرحة وين بينات هاي إن أنا تلقي أنا كسر نبض مقدمه آدي أدنى واحد من كمبادنا سيد أدنى سود وسيلة عن الرسول ويجي وحانو مرتقى ذو مقرين تلقى محور هاي تركيا dulkaas oo ay inaga dhaxayso dalkaas ay inaga dhaxayso saaxiibtinimo badan iyo taariikh aynu wadaagno iyo wax warqabsi inaga dhaxeeyo halka waxaan ku argay oo kula kulanay waxa ugu mudnaa prime minister Erdogan iyo deputy-giisa iyo wasaaraddiisa waxa aanu muxuu ahaayay waxaanu helaba wadan oo taariikh badan ka dhaxayso oo wada qabsan kara hawlo badan oo dhinacyo badan leh waxaan ku qancinay in annaga iyo Soomaaliya aanu nahay laba wadan oo walaalo ah laakiin aan qadiyadda gooristaaga ay waxaan cidna la wadaagi karo ama aanu cidna ka tala gelin karo ay tahay madaxbannaani buuxda ama yana arkin armeel kasta kula kulanna laakiin ay tahay qadiyadeedu wax laba taabtaan inay tahay waxaanu kale oo ka wada hadlay in Hargeysa iyo Turkiga aanu ka furno laba xafiis oo ka shaqeeya danaha labada dal waxaanu martiqaad u fidinay dawladda waxaana wafdi uu hogaaminayo deputy prime ministerku ay ma doonaan insha Allah waqti munaasib ah waxay ballan qaadneen inay wafdigu uu ima doono dalkeena waqti munaasib oo aynu ku heshiino insha Allah taala turkigu waxaan ku soo aragnay dal weyn oo diyaareen wax wada qabsano oo taariikh badan naga dhaxayso oo awood leh oo niyad sami badan ay ka muuqato una diyaara inaga iyo dalal kale badanba خاصة أفريقيا إنه يسوي جستو وحلقته إنه قلنا وحين مرة والبديار نهاي إنه نكفى إذا سنو فرصتها إنه يمادة وإنه تلقى يدوري ذا الديار كره وحقبته إنه سودوين يشرف وأن مجحومه يشرف حمدتك يدوري ذا عرت إن الله إبن أقول له ما دو حمدتك سوي شيء ذنو هدي تابع مصر كذا هدي تكون مالقشة الدنيا هدي يكون سياسة الدنيا هدي الدنيا يكون مقع يشرف دوري أنت بين النجار إنه ويا الله إن شاء الله تعالى إنه نقولنا إنه واجب كي حلقة إلى سارن قرن إنه كسر بحد دونه وإنه نقول حلقينا إنه قرن دونه تلقي ذاتك إنه قباهي وكعادي أربعة السلام عليكم وأنت في عالم سود ويسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا هذا الجميع يستدعي ودي اسمه كمان هرمات عوام حكريت ودرسة. إلهي يربرينا إلهي وحسن. إسماعيل وحنا كسر التلفزيون كراية سيدي. وقت جاء قبصوم إلى هيدا دور شوي كسومال لأن هذا وحكى عليه السنة هي بلوك. أرجع كاسي محل هاي القرشة وسواش الكوبات سواش اللي بعدين كويدينيا.
su-aasha labaad ku dambayso taas waa ka jawaab wixii qabashooyinka ku saabsan doorashooyinka hay'ad qaranku leeyahay baan ku shuqul leh wax dowladda Soomaaliland ay marnaba dib u dhigayso doorashooyinka qaranka waqtigooda iyo nidaamkooda iyo goorta loo qabtay ma ay jirto dowladdu waxay mar walba diyaar u tahay inay waqtigii iyo goortii loo qabtay doorashada ee dimuqraadiyadda ee sharciga tilmaamayay inay sidiisa u fuliso wixii waajiba kala gudboona ay buuxiso cabdirahmaan dowladda Turkigu taamay la qaadatay markii hore seen madmadowga ka jiray arrintaas dowlad kasta dowladda Turkiga qolo kuma dowladda Turkiga waa dowladaha daneeya inay mandaqada tan ku noolahay aad u daneeyo weey waan ognahay wax fara badan bay ka qabatay Soomaaliya ura qabanaysa hawlo fara badan way ka jirtaa dhowr jeer hawlaha way isku daday inay Soomaaliya iyo Soomaaliland soo keento marka maadaama ay tahay dowlad muslima oo xoog weyn oo awood leh oo daneeya mandaqada oo Soomaaliya ku xiran dabcan way daneeyaan qadiyada Soomaaliya ay ku ay jeclaan ku magac doontaan isu keenkii isu soo dhaweynteeda laakiin qadiyada Soomaaliya annagana sida waajibka saayay waxa ina saaran inay wax wada qabsi iyo soo dhaweyn sida marka aynu yeelano laakiin aynu u cadeyno mowqifka Soomaaliya ka taagan tahay arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland inagoo aan dhibaato aad iyo aad madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdiga uu hogaaminayo oo madaarka caasimadda Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland xubno kamid ah saddexda gole qaran taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale ayaa kulan warbaahineed ku qabtay qolka nasashada ee madaarka caasimadda Hargeysa kaasi oo kaga warbixiyay socdaalkii uu kaga soo laabtay wadanka Turkiga iyo kulamadii uu la yeeshay madaxda wadankaasi Turkiga waxaana uu yiri isagoo arintaasi ka hadlaya madaxweynaha Soomaaliland markii uu ka soo degay dhabaha diyaaradu ay ka hadana madaarka caasimadda Hargeysa waxa uu halkaasi salaan sharaf kaga qaatay qaar kamid ah ciidamada Bamboyda iyo ciidamada qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse Cumar Caawil Cabdi Kaahin telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa أنا وديرات والله. إيش ده؟ صار. إنما ده ما استيرنا والله ووضع أخلاقات من الناس. إيه. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo socdaalkiisaasi uu kaga soo laabtay Turkiga waxa ku wehelinayay xubno kamid ah golaha wasiirada oo ay kamid yihiin madaxweynaha Soomaaliland socdaalkiisaasi uu kaga soo laabtay wadanka Turkiga waxa ku wehelinayay xubno wasiir ah oo ay kamid yihiin arrimaha dibadda macdanta iyo madaxweynaha Soomaaliland oo socdaalkaasi kaga soo laabtay Turkiga waxa madaxweynaha Soomaaliland socdaalkiisaasi uu kaga soo laabtay wadanka Turkiga waxa ku wehelinayay xubno wasiir ah oo ay kamid yihiin arrimaha dibadda macdanta
iyo marwadiisa waxaana madaarka magaalada Hargeysa markii uu ka soo degay halkaasi salaan sharaf uu ka qaatay qaar ka mid ah ciidanka qaranka iyo ciidanka Pamprida.